halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti waxaan u wanaagsan khayrta hawada nagala xiriirtay meel kastoo inaga maqlaysaan waa duhurnimo Arbaca 21 bisha September sanada 2022. arrimahan barnaamijka duhurnimeedii kugu haynana waxaa ka mid ah xiriiryaha magaalada Minnesota ee wadanka Mareykanka oo maanta ku dhawaaqay dacwad dambi oo heer federaal ah oo ka dhanaa 47 qof oo ku eedeysan inay lunsadeen lacag loogu talagalay in caruur lagu qoodiyo. ciidamada huwanta Hiiraan ee dagaalka kula jira Al-Shabaab oo sheegay in deegaano horle ay ka saareen ururkaasi dagaalkan ay sii wadi doonaan. haddaba maxay doonayaan? marka koowaad waxaan rabnaa inaan ummadan ay gowracadkooda aan ka saarno Soomaaliya intuu shabaab ka cirib ku ah anaga dagaalka waa wadayna hal ujeeda meesha ka jirta qaranka Soomaaliya la difaacaya dadkana waa laga badbaadinaya dugaaggan ummadda dhameey oo meel u bannaan aysan jirin ilaa meesha ugu dambaysan ugu daba tagayna. iyo madaxweynaha wadanka Ruushka oo amray in qayb ahaan la abaabulo militariga dalkaasi xilli uu sii kululaanayo dagaalka ka socda wadanka Ukraine. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan ay wadajirka u soo saareen Cabdiraxmaan Xaaji Cadowi Ciise Xaaji Cabdullaahi anigu Aftaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Foos Ciid. mahadsanid Cabdifataax. madaxweyne Putin ayaa ku eedeeyay reer galbeedka inay doonayaan in ay arkaan Ruushka oo kala go'a. waxa uu amray qaybo ka mid ah abaabulkiisa ciidan. Mr Putin waxa uu sheegay in Moscow ay isticmaali doonto wax kasta oo ay ku ilaalin karto dhulkeeda. waxa uu sheegay in waxa uu ugu yeeray madmadowga nukliyeerka ee reer galbeedka laga yaabo in ay dib u soo laabato. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in 300,000 oo ka mid ah ciidamada kaydka ah ee militariga oo khibrad dagaal leh hadda loogu yeeri doono in ay ka howlgalaan Ukraine. Ukraine iyo Britain ayaa labaduba sheegay in ay ku dhawaaqista Moscow ay la micno tahay in dagaalkoodu uusan u soconin sidii loogu talagalay. safiirka Mareykanka ee Kiev ayaa sheegay in abaabulka iyo ku dhawaaqista waxay ugu yeertay aftida Sham ee ka dhacday qaybo ka mid ah Ukraine oo uu Ruushku qabsada ay muujinayso daciifnimo. dhanka kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku celceliyay baaq ku aadan dhammaan dhinacyada in ay wada hadlaan. marka la eego dagaalka ka socda Ukraine mowqifka Shiinaha mar walba waa mid cad. waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada ay khusayso inay xabad joojin gaaraan dagaalkana lagu dhameeyo wada hadal iyo wada xaajood lana helo xal xisaabta ku daraya. sidoo kale walwalka amni ee macquulka ah ee ay dhinacyadu qabaan sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaa kaloo aan rajaynaynaa in beesha caalamku ay abuuri doonto xaaladii iyo goobtii ku habboonayd arrintan. Jarmalku waxa uu qarameynayaa mid ka mid ah soo dejiyaasha ugu weyn ee gaaska Ruushka Uniper goynta Moscow ee sahayda ayaa ciriirisay shirkadda. Berlin waxa ay kula heshiisay milkiilaha Uniper inay iibsadaan saamiyadeeda oo ay ku duri doonto $8 bilyan. wakaalada wararka ee Iran ayaa sheegtay in kaaliyo boolis ah la dilay 4 askari oo boolis ahna la dhaawacay kadib mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay magaalada Shiraz ee koonfurta dalkaasi. waa mid ka mid ah ugu yaraan 15 magaalo oo ay mudaharaadyadu ku sii fidayaan maalmo kadib geeridii gabar dhalinyaro ah oo xabsi ku jirtay. hay'adda ayaa sheegtay in dadku ay xireen wadooyinka isla markaana ay dhagaxaan tuurayaan. siyaasiyiinta Kashmir ee ay Hindiya maamusho ayaa cambaareeyay isku day dawladdu ay ku doonayso in ay ku barto caruurta muslimiinta ah ee iskuulada dhigta heesaha cibaadada ee Hinduuga. waaxda waxbarashadu waxa ay sheegtay in ay ku xiran yihiin dabaaldegyada sanad guurada dhalashada Mahatma Gandhi. ugu dambeynna xiriirka kubadda cagta ee Australia ayaa baaraya waxa uu ugu yeeray naxdin eedeymaha cunsuriyadda ah ee ka dhanka ah ciyaartooyda asaliga ah ee ay soo jeediyaan shakhsiyaad sare oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee xeerarka Australia. waxaa la sheegay in shaqaaluhu ay dalbadeen kala ilaalinta ciyaartooyda asaliga ah ee lamaanayaashooda si ay ugu qasbaan in ay diiradda saaraan gabi ahaanba ciyaarta, xitaa in hal ciyaaryahan oo asaliga ah loo sheegay inuu ilaaliyo uurka qaadista xaaskiisa. wararkii waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo Cabdifataax iyo qaybaha kale ee idaacadda. aad baad u mahadsantahay Foos Ciid ayay taasi ahayd wararka caalamka qodobadii ugu door karanayeen la socodsiinaysa dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka.
aynu ku bilownay xiraalyaha magaalada Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa waxaa maanta uu ku dhawaaqay dacwad dambi oo heer federaal ah oo ka dhanaa 740 qof dadkaas ayaa waxaa lagu eedeeyay in dowr ay ku lahaayeen lacag gaaraysa $250 milyan oo doolarka Mareykanka oo si khaldan loo isticmaalay taas oo dowladda federaalku ugu talagashay in lagu qudiyo caruurta xilliguu jiray cudurka safmarka COVID-19 faarax lamaane ayaa soo akhriyay qoraalka waaxda cadaaladda Mareykanka warbixintan ayuuna inooga diyaariyay 740 qof ee la soo eedeeyay waxaa ku jira dad Soomaali ah oo Mareykanka ku nool kuwaasoo xiriir la leh Kenya waxaana loo haystaa inay khiyaameeyeen $250 milyan oo doolar oo qayb ka ah barnaamij loogu talagalay in cunno lagu siiyo caruur xilligii uu jiray cudurka COVID-19 maamulayaasha Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay ku dhawaaqeen in dadkaas la tuhunsan yahay lala xiriirinayo hay-ad ay maamusho gabar la yiraahdo Amy Bock oo ah hay-ad aan macaash doon ahayn oo la yiraahdo Feeding Our Future oo ka shaqeysa barnaamijka heer federaal ee quudinta caruurta gobolka Minnesota. Amy Bock waxa ay diiday inay wax qalad sameeyeen. agaasimaha FBI-da Christopher Wray waxa uu arrinta ku tilmaamay shirqool aad u xun ahna kii ugu weynaa ee noociisa ee daaha laga qaado eedeysanayaasha ayaa waxaa la sheegayaa in ay bixiyeen biilasha cunno aan la cunin oo la siiyey caruur aan jirin sida ay sheegtay waaxda cadaaladda Mareykanka waxay sidaa yeeleen baa laleeyahay ayaga oo si xun u isticmaalaya qorshaha dowladda ee saamaxaya in makhaayadaha gaarka loo leeyahay ay lacago soo dallacan karaan ayagoo sheeganaya in si waafaqsan barnaamijkaas aan macaashka laga raadinayn ay cunno u bixiyeen sida ay dacwaddu sheegayso shaqaalaha hay-adda Feeding Our Future ayaa qortay shakhsiyaad iyo hay-ado si loo furo xarumo quudin gobolka oo dhan goobahaas oo ay abuureen kana shaqeeyaan dadka eedeysan iyo qaar kale ayaa waxaa la sheegayaa in si aan sax ahayn ay u sheegteen inay raashin siinayaan kumanaan caruur ah maalintiiba maalmo gudahood markii la sameeyey waaxda cadaaladdu waxa ay sheegaysaa in dadka eedeysan lacagta ay isdaba mariyeen kuna iibsadeen gawaarida raaxada iyo dhismayaal isugu jira kuwo deegaan iyo kuwo ganacsi gobollada Minnesota, Ohio iyo Kentucky waxaa sidoo kale hantima guurto ah ay kaga iibsadeen xeebta Kenya iyo Turkiga ayagoo sidoo kalena u isticmaalay safarro caalami ah mid ka mid ah dadkaas ayaa Mareykanka lagu xiray bishii April isagoo isku dayayay inuu u dhoofo Kenya siina maro Amsterdam bishii hore ayuu qirtay khiyaano xagga baasaboorka ah in uu sameeyey dambiyada kale ee loo haysto dadkaas waxaa ka mid ah mu'aamaraad lacago la xawilay lacago si xaaraana lagu kasbaday iyo laaluush xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland waxa uu sheegay in waaxda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay gacan bira ku qabato kuwa buu yiri wixii cudurka loogu talagalay u isticmaalaya danahooda gaarka ah farax lamaanaad buu mahadsan yahay dhegeystayaal garaale hadalkan iri ee magaalada Minnesota ma ahan waa magaalo ka tirsan gobolka Minnesota xeerliyada ee gobolkaasi Mareykanka ayaa warbixintaasi ay ku saleysnayd markanse wararka Soomaalida aynu eegnay ciidamada huwanta ee ku sugan gobolka Hiiraan ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in deegaano hor leh ay ka saareen ururkaasi dagaalkan ay sii wadi doonaan Korneel Cali Dhuux Cabdi Mahadalle tali ku-xigeenka booliska gobolka Banaadir oo haatan ku sugan jidda hore ee dagaalka ayaa BBC-da waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay deegaano badan ka saareen ururka Al-Shabaab militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa muddo bila waxa ay dagaal kula jireen ururka Al-Shabaab iyagoo halkaasna ka dhalatay oo leeyahay khasaare baahsan haddaba Korneel Cali Dhuux Cabdi Mahadalle ayaan kula xiriiray khadka taleefanka si aan u helno faahfaahintaasi dheer waxaan marka hore weydiiyey halka uu joogo iyo sida uu xal yahay hadda annaga waxaan ku sugannahay degmada Halgan magaalada Buulaburdana waxay dhinaca waqooyi ka jirtaa 41 kilomitir dhinaca kaleeto oo beledweynena 65 kilomitir ka jirtaa howlgal dheer oo aan soo marnay ayaan ku nimid degmada Halgan ciidan aad u baaxad weyn ayaan ku soconaa saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi waa taliyaha macawisleyda guud ee gobolka Hiiraan Korneel Cabdullaahi Barre taliyaha guutada shanaad Korneel Baakaay nabadoonkii guud ee beelsha nabadoon
nabadoon cilmi hagar guure iyo aniga oo ah korneel cali dhuux cabdi mahadalle marka adowgu waxay sameeyeen si aan si degdega loogu gaarin ayay jidgooyooyin badan oo miino u badan dhulka dhigeen ummadii iyo xoolihii iyo geelii iyo dadkii aroorahayna khataray ku ahayd innagana waxay rabeen inay nagu waxyeeleen marka dhinacna miinada ayaan ka xaalufinaynay dhinacna meelahay ku dhuuma karaan oo dhanaan soo aslaaxinay. ciidankiinu muxuu yahay? ciidankeenna laba baaba isugu jiraa ciidankii xoogga dalka soomaalida guutada shanaad ururo ka tirsan oo laba ah iyo ciidan ilaa 500 gaarayo oo ciidankii deegaanka. korneel cali dhuuxow waxaad tahay taliya ku-xigeenka booliska gobolka banaadir haatanna waxaad hogaaminaysaa ciidamo deegaan ah oo aan military ama dowlad aan ka tirsanayn marka sidee adigoo mas-uul dowladeed ah u hogaamin kartaa ciidamada deegaanka? su-aal fiican aad weydiisay. ciidamadan halkan joogaay horta dowlad waa shacabka waa fursad aan la iloobi karin oo soo baxday waxaa halka ka dagaalamayaana waa dowladdii ciidankii qarankuna waa dagaalamayaa shacabkii deegaanka joogay oo la gumaysan jiray oo hubkiisa qaatay oo in saqiiradooda iyo maalkooda iyo naftooda laysku darsado diiday oo ka gadoodayna waa joogaan oo ciidankii ka mid yihin cid gaar u shaqaynaysa iyo cid qabiil u shaqaynaysaa midna kuma jirto waa ciidan qaran wey dowladda ayaa markii dalka la xoreey habka u jihaynaysa taqaana laakiin muhiimiyaddu waa in dalka la xoreey. deegaanada aad haatan soo marteen aad sheegtay inaad shabaab ka qabsateen yaa amnigooda sugaya? meel kasta oo aan soo marnay oo istiraatiijiyaha ciidan loogu talagalay aa lagu reebayo deegaankaasina waaba soo baxayo meeshaan ugu tagnaba ciidan aana ka helaynin ciidankaasaan ciidan kaleeto oo istiraatiijiyadaas ilaaliyaan uga soo tegayni ma rajaynayno deegaan ciidankaanu maray in wax danbaa ka dhici doonaan ma rajaynayno xilligay dhuudhuuma jireen oo telefoonada intay soo diraan dadka kala dhexgeli jireen oo wax u kala sheegi jireen nimanka ugus la yidhaahna waa dhammaatay. marka dagaalay dhacaan oo kale shabaab dadkay dhex galaan marka caqabad ma aragtaan in dadka caadiga dhinaca ka raacaan hadhowna aad kala saari weysaan shacabkii iyagii? walaale dadku waa dad isyaqaana waa dad deegaan joogay shacabka marka la dhex gelayana waa mar ay shacabku shabaabka fahamsanayn oo aan dhibka shabaab iyo ujeedada shabaab aad loogu wada baraarugin waxaan ilaahay mahadiisa in maanta dhibka shabaab ay ummadda ku hayaan oo deenta ay ka sheegayaan diinta sida ay ummadda u qiyaameeyeen dhiigoodii ay banaysteen maalkoodii ay banaysteen xooloodii ay dhaceen inay shaqaystaan ay u diideen markaas waa fursad aan horay u dhicin shacabka ayaan ongolayno meel allala meeshay soo maraan inay sheegaan iska dhaafsa iyagiyaaba xabad ku ridaa marka meelay ku dhuuma karaan kuma taalla gobolka hiiraan hal qodob ayaa u bannaan oo keliya shabaab inay isi soo dhiibaan hubkoodana xareeyaan kadibna dowladda lagu wareejiyo dowladdu shacabka ay u dhigaysa ayaday u taallaa. dagaalkan ilaa goormaad wadaysaan? marka koowaad horta waxaan rabnaa inaan ummaddan ay gowraceen dadkooda aan ka saarno soomaaliya intuu shabaab ka cirib go-a annaga dagaalka waa wadaynaa cidda dagaalamaysa ama dharcad ha wadato ama ciidankii qaranka ha wadato hal ujeedaa meesha ka jirta qaranka soomaaliya la difaacaya dadkana waa laga badbaadinaya dugaagaan ummadda dhameeyey oo meel u bannaan oo aysan jirin ilaa meesha ugu dambaysaan uga daba tegaynaa haddii ilaahi subxaana watacaala yidha. kaasi waxa uu ahaa korneel cali dhuux cabdi mahadalle oo khadka taleefonka igu warramay. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in qaab ahaan la diyaariyo militariga dalkiisa. khudbad telefishinkan idhaahdo uu qarankiisa uga jeediyey ayuu madaxweyne putin waxa uu ku sheegay in tallaabadan ay laga maarmaan u tahay xaqiijinta madax bannaanida dhuleed ee dalka iyo in la ilaaliyo dadka ruushka ee ku sugan dhulka laga haysto waddanka Ukraine. talaadadii ayay ahayd markii dhulkaasi loogaga dhawaaqay qorshe degdega oo lagu codeynayo sidii ay ugu biiri lahaayeen ruushka. khudbadda Mr. Putin waxa ay qeexaysaa in dib loo howlgeliyo ciidamada kaydka ee militariga dalkaasi. Putin dhankiisa waxa uu dalalka reer galbeedka ku eedeeyey in ay doonayaan inay burburiyaan dalkiisa sidii hore ay ugu sameeyeen midowgii Soofiyeed. faafahinta warkan waxaa isku soo duwayna la socodsiinaya Ciise Xaji Cabdulle. aqalka ruushka loogu arrimiye Kremlinka ilaa maanta waxa uu ku andacoonaya in howlgalka gaarka ee militariga Ukraine uu u socday sidii qorshuhu ahaa, balse hadda xaaladdu way isbedeshay. madaxweyne Vladimir Putin mar uu ku dhawaaqayay abaabulka qayb ka mid ah kaydka militariga wuxuu qiray in ruushku u baahan yahay askar badan oo furiinta hore ee dagaalka aado. hase aatee madaxweynaha ruushka kaba qoomameynayo duulaankii 7 bilood ka hor ku qaaday Ukraine. hogaamiyaha Kremlinka ayaa dhammaan dhibaatooyinka ruushka ku eedeeyay reer galbeedka kuwaasoo uu ku eedeeyay inay rajeynayaan inay kala gooyaan ruushka.
madaxweyne putin ayaa sheegay inuu adeegsan doono wax kasta uu awood u leeyahay si uu u difaaco ruushka haddii madax bannaanida dhulkiisa la halisgeliyo. waxa uu sheegay in reer galbeedku ay ku dhaqaaqeen fal ka dhan ah ruushka markay hub siiyeen Ukraine. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей. waa arrin gardarro ah oo ka dhan ah siyaasadda ruushka. reer galbeedka waxay ka soo tallaabeen khadka cas. waxaan maqlaynaa hanjabaado joogta oo loo jeedinaya dalkeenna iyo dadkeenna. siyaasiyiin reer galbeedda oo mas-uuliyadoodii gabay ayaa ka hadlaya hubka riddada dheer ee loo diray Ukraine iyo gantaallada u oggolaanaya Kiev inay duqayso gobolka Crimea iyo gobollada kale ee ruushka. falkan argixisada ee lagu fulinayo hubka reer galbeedka horey ayaa loo geystay deegaanada xadka gaar ahaan Belgorod iyo Kursk. Уже наносится по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. ruushku waxa uu afti ka qaban doonaa dhammaan dhulalka laga qabsaday Ukraine. taasi waa fariin cad oo ku socota Ukraine iyo reer galbeedka. ha isku dayin ayuu yidhi inaad dib u qaadataan dhul aan qabsannay oo aan sheeganayno inaan leenahay. putin waxa uu intaasi ku daray in dalkiisu isticmaali doono dhammaan awood walba oo uu heli karo si uu u ilaaliyo madax bannaanida dhulkiisa. waxa uu sheegay in reer galbeedku ay doonayaan in dalkiisa ay dabar gooyaan sidii ay u burburiyeen midowgii Soofiyeed. НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе. NATO waxay dhaqdhaqaaq ka wadaa guud ahaan koonfurta ruushka. Washington, London iyo Brussels waxay Kiev si toos ah ugu qasbayaan inay howlgal militari ka samayso dhulkeenna. ma qarinayaan xaqiiqada ah in sidii gebi ahaanba ruushka looga guulaysan lahaa dagaalka iyagoo adeegsanaya wadiiqo kasta ha ahaato mid siyaasadeed, mid dhaqaale, dhaqan iyo mid ka dhana madax bannaanida. gebi ahaanba waxay doonayaan inay khas ka abuuraan dalkeenna. Культурного, вообще всякого суверенитета. Полным разграблением нашей страны. si uu u muujiyo inay dhab ka tahay arrintan waxa uu soo bandhigay hanjabaadiisa. waxauna yidhi kuwa doonaya inay nagu handadaan hubka nukleerka waa inay ogaadaan in dabaylaha colaadda ee hadda jira ay u jeedin karaan jihadooda oo waxa uu ula jeedaa in guusha dhanka dalkiisa ay aadi karto mar walba islamarkaana colaad ka abuuri karto dalalka kale ee Ukraine taageerayo. Тут пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом. handadaad dhanka nucleerka ayaa soo baxday. keli ah kama hadlayno duqaynta lagu hayo warshadda nucleerka ee Zaporozhye oo ay dhiirigelinayaan reer galbeedka. tallaabadaasi oo ay ka dhalan karto masiibo nuclear iyo sidoo kale hadallada ka soo baxaya xubnaha sare ee hogaaminaya dalalka NATO ee ku saabsan suurtagalnimada iyo ogolaanshaha ku aadan in la adeegsado hub burbur baahsan ka geysan kara ruushka. waa hubka nucleerka. оружие массового поражения, ядерного оружия. putin oo dadweynaha kala hadlaya telefishinka qaranka ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabo kasta oo ku difaaco shacabkiisa ee ku nool gobolka Donbass. waxa uu amar ku bixiyay sare loo qaado dhaqaalaha si loo xoojiyo awoodda hagaajinta ee hubka. ciise aad buu mahadsan yahay. facebook anaga qaar ka mid dhegeystayaasheena raayigooda halka kaga soo dhiibteen warbixintaas mid labaan soo qabtay maxamed haadi sheekh cumar oo ka soo qoray gaalkacyo wuxuu leeyahay madaxweynaha ruushka ee sheegay inuu abaabulaya ciidankiisa runtii waa arrin aan farxad gelinayn caalamka. waxaana muuqata in bilow uu yahay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine. waxaana habboon marka madaxda caalamku xal caafimaad qaba oo dhexdhexaadnimo laga raadiyo arrintaasi oo lagu garo labadaasi wadan dhibaatada u dhaxaysa. axmed maxamed cismaan oo ka soo qoray dhagax buurna wuxuu leeyahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Vladimir Putin ee wadanka ruushka runtii waa mid aan waxba soo kordhinayn waayo hore loo yiri meel u baahan hadal waxba kama taro. waxaa u muuqataa buu yiri inuu ku fashilmay dagaalka uu ku qaaday wadanka Ukraine. waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha BBC ee Facebook markan aynu kusoo laabana bal wararka gobolka ee sida ay baahisay wakaaladda wararka wadanka Ethiopia. dowladda federaalka ee wadankaasi ayaa waxa ay gaashaanka u daruurtay warbixin ay soo saareen koox khubaro oo ka tirsan qaramada midoobay taas oo lagu soo bandhigay gabadfallo lagu geystay dagaalka sokeeye ee ka socda wadankaasi waqooyiga dalkaasi. golaha caalamiga ee khubarada xuquuqda aadanaha Ethiopia ayaa waxay sheegeen in dadka rayidka ay halis ugu jiraan qulqulatooyin dheeraada tan iyo markii uu dagaalku dib u bilowday bishii la soo dhaafay. dowladda Ethiopia waxay sheegtay in dadkii ku xadgudbay xuquuqda aadanaha ay cadaaladda marsiisay. cabdiraxmaan xaaji cabdi ayaa faafahintan u haya. dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa gaashaanka u daruurtay warbixin ay soo jeediyeen guddi khubaro ah xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay. guddiga oo dowladda Ethiopia ku eedeeyay tan iyo markii uu bilowday dagaalka waqooyiga Ethiopia bishii hore inay dadka rayidka ah oo ku nool deegaanka Tigray
khatar soo food saartay halisna ay ugu jiraan xadgudubyo kale. wakaaladda wararka etoobiya oo soo xigatay la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen waxay sheegtay warbixinta guddiga khubaradu inay ka muuqato degdeg iyo mid laga leeyahay dana siyaasadeed oo qarsoon, balse loogu magac daray warbixin dhanka xuquuqda aadanaha oo la sameeyey. ridwaan waxa uu sheegay warbixinta guddiga inay tahay mid lagu doonayo in lagu wasaqeeyo sumcadda dalka etoobiya ayna muujinayso hadafka siyaasadeed ee warbixintaasi laga lahaa. waxyaabaha warbixinta lagu sheegayna ay yihiin been lasoo dhoodhoobay oo dadka lagu marin habaabinayo. ridwaan xuseen waa taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu dalkiisa marnaba aqbalayn isku day kasta oo lagu doonayo in dalka etoobiya cadaadis siyaasadeed lagu saaro, faragelin shisheeyana uu u baahnayn dalkiisa. dowladda etoobiya waxay horey u sheegtay shakhsiyaadka xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha geystay intii uu socday dagaalka waqooyiga etoobiya in cadaaladda la horgeeyey. xayiraadaha dhanka isgaarsiinta oo gobolka tigreega saaran ku dhowaada 2 sano ayaa xadiday in halkaasi laga helo warar madax bannaan oo ku saabsan dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya, taasoo keentay in ay bataan dacayadaha la isu marinayo baraha bulshada. cabdiraxmaan xaaji cabdiwaad buu mahadsan yahay. markana ciyaarihii aynu eegna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay shaqadii ka eriyeen dhanka agaasimaha dhanka ganacsiga ee kooxdaasi Damian Welby. ninkaas oo fariin aan wanaagsanayn u diray baa la yidhi oo aan habboonayn haweeney dhanka wakiilnimada uga qaabsan kooxaha kubadda cagta dhanka dhaqaalaha. Welby ayaa fariintaasi aan sidaasi u habboonayn waxa uu u diray Catalina Kim ka hor inta uusan ku biirin kooxdan Chelsea bishii lasoo dhaafay, iyadoo markaas gabadhaasi Kim ay doonaysay bal inay wax ka gadato kooxda West London ka ciyaarta bishii March. waa tahay markana bal barnaamijkii baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caisha Saciid Xasan. Caash mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdinaasir Ibraahim Cusmaan oo jooga Beledweyne. waxa uu baafinayaa Nado Cabdinaasir Ibraahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Belgiumka 2021. haddaba haddii ayna maqlaysan Nado Cabdinaasir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdinaasir Ibraahim iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Cabdinaasir Ibraahim Cusmaan oo jooga Beledweyne Soomaaliya waxa uu baafinayaa Faaduma Haruun Bilow waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Belgiumka sanadii 2021. haddaba haddii ayna maqlayso Faaduma Haruun Bilow ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdinaasir Ibraahim Cusmaan iyadoo wax war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Sumaya Cali Saalax oo joogta Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah Faatima Cali Maxamed, Suleybaan Cali Maxamed iyo Warda Cali Maxamed. waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2017. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sumaya Cali Saalax iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Soomaaliya. Sharmaaka Cabdi Xasan oo jooga Qoryooley Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Aragsan Cabdi Xasan Axmed iyo Cali Cabdi Xasan Axmed. waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan Belgiumka sanadii 2021. haddaba haddii ayna maqlayaan Aragsan Cabdi Xasan iyo Cali Cabdi Xasan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Sharmaarke Cabdi Xasan oo jooga Qoryooley wuxuu markale baafinayaa Axmed Cabdi Xasan iyo Zakariya Cabdi Xasan. waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Belgiumka 2021. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Sharmaarke Cabdi Xasan iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Sharmaaka Cabdi Xasan oo jooga Qoryooley Soomaaliya waxa uu markale baafinayaa dadka kale Saadiq Cabdi Xasan Axmed iyo Farxaan Cabdi Xasan Axmed. waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Belgiumka sanadii 2021. haddaba haddii ayna maqlayaan Saadiq Cabdi Xasan Axmed iyo Farxaan Cabdi Xasan Axmed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wax war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. wali waxaa ku guda jirnaa baafintii Sharmaarke Cabdi Xasan. waxa uu markale baafinayaa Faysal Cabdi Xasan, Saciida Cabdi Xasan, Maxamed Cabdi Xasan iyo Cabdi Xasan Nuur. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Belgiumka 2021. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sharmaarke Cabdi Xasan iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgiumka. Cabdiraxmaan Canshuur Cabdi oo joogo Baardheer Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Raxma Canshuur Cabdi, Mayda Canshuur Cabdi, Anas Canshuur Cabdi iyo Cabdirashiid Canshuur Cabdi. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay
iyagoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2021 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiye cabdiraxmaan canshuur cabdi iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. cabdiraxmaan canshuur cabdi waxaa marka la baafinayaa cabdirasiid canshuur miski canshuur iyo cabdisalaam canshuur dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beljimka haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiye cabdiraxmaan canshuur iyadoo wix war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. cabdiraxmaan canshuur cabdi oo joogo baardheer Soomaaliya waxa uu markale baafinayaa wiile xasan ilige waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2021 haddaba haddii ayna maqlayso wiile xasan ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiraxmaan canshuur cabdi iyadoo wix waran loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. ifraax daahir axmed oo joogto qoryooley waxay baafinaysaa canab maxamed cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan beljimka 2017 haddaba haddii ayna maqlayso canab maxamed cali ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ifraax daahir iyadoo wix waran loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. ilhaan dayib cumar oo joogto baydhabo Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah ikraam dayib cumar maxamed cabdinaasir maxamed diine iyo randa cabdinaasir maxamed diine dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beljimka sanadii 2019 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo ilhaan dayib cumar iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. ilhaan dayib cumar oo joogto baydhabo waxay baafinaysaa dadka kale ah amiiro cabdinaasir maxamed faadmo cusmaan jeegow iyo cabdinaasir maxamed diine dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka beljimka 2019 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo ilhaan dayib cumar iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljim. bashiir cabdulaahi oo jooga qoryooley Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdiwakiili cabdulaahi khaalid cabdulaahi iyo fadda cabdulaahi dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2020 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo bashiir cabdulaahi iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. bashiir cabdulaahi oo jooga qoryooley waxa uu baafinayaa dadka kale ah faarax cabdulaahi iyo xamse cabdulaahi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka beljimka 2020 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo bashiir cabdulaahi iyadoo wix war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. faadimo xuseen daahir oo joogto Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah rayaan xuseen daahir cabdinajiib xuseen daahir iyo khaalid xuseen daahir dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beljimka sanadii 2021 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadimo xuseen daahir iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. faadimo xuseen daahir oo joogto Soomaaliya waxay baafinaysaa sabriin xuseen daahir maryan xuseen daahir iyo xuseen daahir xasan waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beljimka 2021 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadimo xuseen daahir iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljim. bashiir cabdulaahi oo jooga qoryooley waxa uu mar kale baafinayaa dadka kale ah ayaala cabdulaahi iyo asad muuse jaamac mire dhammaan waxaa ugu wardambeysay dadkaasi iyagoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2020 haddaba haddii ayna maqlayaan ayaala cabdulaahi iyo asad muuse jaamac amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo bashiir cabdulaahi iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. bashiir cabdulaahi waxa uu mar kale baafinayaa qadar cabdulaahi iyo ciga cabdulaahi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beljimka 2020 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo bashiir cabdulaahi iyadoo wix war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. deeqa axmed faarax oo joogto muqdisho Soomaaliya waxay baafinaysaa abubakar nuur cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2020 haddaba haddii uuna maqlay abubakar nuur cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo deeqa axmed faarax iyadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. deeqa axmed faarax waxay mar kale baafinaysaa dadka kale ah sundus nuur cali iyo sihaam nuur cali waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka beljimka 2020 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo deeqa axmed faarax iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beljimka. sumaye cali saalax oo joogto kismaayo Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah faadimo cali maxamed iyo suleymaan cali maxamed waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka beljimka sanadii 2017 haddaba
haddii ayna maqlayaan faadimo cali maxamed iyo suleymaan cali maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan markooda hala gaarsiiyo sumeeye cali saalax ayadoo wix war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay sumeeye cali saalax waxay mar kale baafinaysaa wadda cali maxamed iyo shuufa saciid waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan beljimka 2017 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo sumeeye cali saalax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka beljimka. baafintiina maanta waa naga intaa. caasha saciid iyo faysal bishaar aliigu aad bay umahadsan yihiin barnaamijkii baafinta ayay nala socodsiinayeen intaana waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii idaacadda duhurnimo ay soo saareen cabdiraxmaan xaaji cadow iyo ciise xaaji cabdille ciduu barnaamijkan dhaaf xidib uga daalaan kartaa barteena internetka ee bbc somali.com. shanta galmoodinta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.